السلام عليكم صاحبada aanu jecelnahay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo halkan kaga soo gudbino muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa foolkaabid ama wax lagu magacaabo induction of labor ama hooyadu marka ay dhaafto bilihii sidkeeda oo waqti dheer ay uurka sii sido isla markaana aysan fool qaban waxyaabaha loo sameeyo ee lagu soo dedejiyo foosha haddii xilliga foosha loogu talagalay oo ahayd wixii ka horeeya isbuuca 42 ee uurka ay dhaafto hooyadu wax fool ahna aysan qaban waxa loo sameeyaa foolkaabid markaan waxa la siiyaa hooyada dawooyinka sababa inay hooyadu dareento xanuunka foosha minkana uu aruuro si uu u soo saaro uurku jiraha marka waxa dhacaysa in uu kafku furmo marxaladihii fooshuna ay bilowdaan sababaha keeni kara in hooyadu u baahato foolkaabid xaalado caafimaad xumo oo hooyada haya sida dhiig karka xilliga uurka ee lagu magacaabo بريكلامسيا ama eclampsia kaadi macaan kaliya xanuun uurku jiraha oo miisaankiisu aad u yar yahay kala duwanaanta nooca dhiiga ilmaha iyo hooyada caabuqa ku dhaca biyaha uurku jiraha ilmaha oo minka ku dhinta abuurka uurku jiraha oo qaldan uurka oo waqtigiisi dhaafay waqti hore oo xuubkii dhalmada u dilaacay hooyooyinka uurka leh ee aan loo isticmaali karin daweynta foolkaabida uurku jiraha madaxiisu uusan kafka ku soo aadaneyn oo madaxiisu uusan hooseynin looma isticmaali karo dawooyinka lagu dedejiyo foosha hooyada hore loo qalay ama minkeeda uu dhaawac hore gaaray sidoo kale hooyada qabta fayraska xubnaha taranka ku dhaca uurka ibidu ay ka hooseyso sidoo kale looma isticmaali karo dawada mataana hadii hooyadu sido looma isticmaali karo hooyada leh caqabadaha kafka la xiriira iyadana looma isticmaali karo sidoo kale hooyada aan awoodin in ay foolato oo tabarba aan heenin looma isticmaali karo dawada oo lagu dedejin karo foosha uurku jiraha dhaqdhaqaaqa wadnihiisu uusan aad u wanaagsaneyn oo aan fiicneyn looma isticmaali karo iyadana dawada qaababka soo gaabinta sidka fogaada kow umulisada ayaa faraheeda gelisa duleelka dhalmada markaana hadba dhinac ugu leexleexisa si ay u dilaaciso xubka ku aadan duleelka dhalmada markaana qoyaanka foosha uu soo maro duleelka dhalmada si uu u qoyo kadib waxa bilaaban doona soo deynta hormoonada foosha fududeeya iyo aruurka minka oo banaanka isaga soo saari doona uurku jiraha sweeping the membrane labo dilaacinta biyaha uurku jiraha artificial rupture membrane saddex siinta hooyada dawooyinka uurka dedejiya ama foosha dedejiya sida misoprostol iyo oxytocin talada dhakhtarka hubinta hooyada foolanaysa ka hor inta aan la siinin dawooyinka foosha dedejiya cabirka kafka hubintiisa sidoo kale hubinta ama xaqiijinta buugga caafimaadka hooyada dhalaysa oo ay ku qoran yihiin dhacdooyinka caafimaad ee soo wajahay dhamaan haddii hooyada foolanaysa aysan dhalin muddo 12 saac waxa ugu horeeya ee foosha lagu dedejin karo uguna wanaagsan waa dawada misoprostol hubinta cabirka iyo miisaanka uurku jiraha si looga fogaado qalad caafimaad darro oo ku yimaada